seegaysa inaan tale diinteeda soddon jir laga saaray oo waxa loo keenay gabadh maxay tolay dhaqankii ka bedelaysa ma socon doonto diyaar baanu nahay waanu tafaxaydanahay ma hari doono loobin baanu samaynaynaa wallahi hadhi mayno oo billahi hadhi mayno tallahi hadhi mayno meel kasta oo joogaan ama maxkamad lagu saarayo ama maxay to media iska soo haraya waa wiilka hore la dhameeyo waxaan la wadwado oo wax iska dhamaado wax walba Soomaalidu wiilka bay ku dhamaysaa laakiin rasmigu waxa weeyaan qofkii afkiisa ka yiri tani ninkii keena saara baa leeyahay isagu baa saaraya hablaha yagiina sumcadood iyo karaamadooda iyo sharaftood ninkaas oo baanu haysanaa una daba taaganahay mana hari doona hadii Ilaahay na gaarsiiyo saas ku talagala halaguna seexda halaguna soo tooso hadhowta ninkii media ka soo qaylay uu iska baxaya kii maxay toolay أنا أقول الله يا مقع والدين تا مقع جواه محمد عبدي. سودو هذا ولا ريال عبتي هرجيسو عركز كشرتك بعد مركي هذا ما بدنا يصبح يعني أما حقيقة دبت اللوجانية. أوكي ولا ريال والدين تكسو كذا حبلها شكون كجيستي أيا أفكار فرطي أما كرؤوا هذا وحين شيء يعني محكمة بتكسر دوناني كلا هذا علدان وحبلوه عيبية كنا دقيق بلا جود هذا بقى سوشيال ميديا وحكي صعدة أوكي إيش وانقرتي وانقرتي دمان كسوق بقلياشة والدين تا مسؤوليات باكو سلامي سودو ولا شيء سوشيال محاكرة ميديا ما تي في هذا كان شوقة دمان تود وان سلامي وحنسكو سلامي يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي في الرئيس وتل وكقيب قلي هذا بوا حنكوها يا أنت يقدر وحيران دقيستو وحن أنا قا والدينتي وكا ما أقول الله مع والدينته هيه وحن شعلان لها وانقرتي أوكي أبارسو سكول وتما أما وأيو أبارسو محيطها أبارسو وسكول أيليه دولة سوماليلاند جمهورية أيليه وانقرتي وسكول كويا سوماليلاند وانقرتي وسكول أيليه أو هوسي ماذا دولة سوماليلاند وانقرتي ما ها سكول أيدس شيء ليه وانقرتي ما ها سكول مالك لكويا لا سكول كان أساس كيس وروحها أساسي أما صدق كيس وروحها كوميونيتيغا سكول كو دقمة وكويا له كوميونيتيغا أيها سكال هادولكا يجا كده هذا بقى وحنا جينا وحير بان كاضينا عذر وحليلي هلا توكتو وأنا جينا وحن كجرا وحن كوها يا حبله قد حتيسوا يجون أفكار فرطي أو عيدي أدونك أما حد تسمعنا ويسان أركيو وحبات جرا وحن كهل دونا أنا واحد بان طابنا يا ديلا هذا وقت بيرينا يا وحن دوني إيه هندقيسن وانقرتي iskuulka la soo bilaabay صح dhow iyo 10 sano la soo socday وانقرتي marxalad kasto adagna la soo maray maxaa ku dhahdaa dhibaatada maanta social media dhex socdaana وانقرتي aanay maxaa ku dhahaa mar walba aan wahayn dadkii iskuulka anagu mar walba dhex joogay وانقرتي ogaa maxaa ku dhahaa xaaladeeda وانقرتي markaan aqliga saliimka aan dib uga noqono صح caqliyadu ma keenayso waalid ilmihiisa intuu tababaray shayga ugu qaalisanaa ee maanta ilaahay na siiyay inaynu ku xareyno meel aynu maanta isleenahay caruurteena sidiinta kaga fogaanayso waalidna ma jecla waxaan filayaa dadka social media ka hadlaya inay dad runtii aqoontooda aad u hooseyso aqoontooda aad u hooseyso haddaba sheekadii hargeysa iyo cirkaas la shareetay ama ceebtii adduunka ayaa qarka loo saareen walaalayaal waxaan ku hayaa garxajiis iyo habar awalo aad iskugu rogay oo sheekada isku bedeshay qabiil laleeyahay codon waa la tooganaya codon sharafta iyo karaamada ayuu ka qaaday dumarka okay waalidiintu oo caraysan ayaa la soo fadhiisiyay meesha waxaan ku hayaa barnaamijyo badan baan ku hayaa hargeysa indhaha ayaa lagu soo jeediyay caalamka oo dhan walaalayaal Soomaaliya indhaha ayay ku soo wada jeediyeen yar iyo weyn waxa laga sheekaysanaya hargeysa waxa ka socda Soomaaliya Puntland Muqdisho dhammaan garow magaalada la yiraahdo Kismaayo Kenya Mombasa dhammaan mudug galgacayo dhammaan waxa indhaha loo dhigaya hargeysa waxa ka socda waa kuwan dumarka dabaka waalidiintii okay waxbaa nitusaya inta chance weyday ama aqoonsiin weyday ama chance kale u waayay iskuulka inay galaan in ay tahay cadowga koowaad horta meesha jooga cadowgaas waxaan oran karaa arrimo badan buu iyo ujeedooyin badan buu leeyahay ujeedooyinkiisa waxa kamid ah waxa weeyaan in qaranka Soomaaliland lagu socdo maaha abaarso waa meel yar waa meel ay gacanta dawladda ku hayso waa meel cidda dhiganaysa ay tahay ciddii wadanka lahayd ma aha dadku cawaan
cawaanimo maaha inaynu ku wada hadalno mana aha dadku in uu caqliyadda ka fogaado iyo shayga runta ah maaha inaynu maanta siyaasadayno waxbarashadan iyo ubadkeeni inaynu siyaasadda kala fogaana waa muhiim hadday sheeko siyaasadeed inay tahay waa u cadday qof kastaana uu garan karaa sheekada siyaasadda waa in lagala fogaada ubadka yaryaree soo koraya oon caqliga lagaga ciyaarin oo aan maxaan ku dhahdaa waxbarashada iyo niyad jabka maalin walba ku dhacay le iskuulkiina wax laga sheegaya in caruurtii laga daayo ayaa aad iyo aad aan u jeclaan lahay waxa weeyaan ardayda meeshan kasoo baxda maanta bidhaheeda waynu arkaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin laba hablood baa maanta imika halkan ka hadlayay waad arkayseen aqoonta iyo iftiinka iyo waxa ummadda somaliland maanta usoo kacaya laga xun yahay waxa weeyaan dadka inagu dhex jira somaliland baa laga xun yahay inay ka baabiyaan waxaan leenahay iskuulkan waa la yaqaanaa waxaa dhigata ardayda dhigtaa culima ubadkooda dhigta waxaa dhigata dad educators dhigta oo mutacalimiina dadka meesha dhigtaa waxa weeyaan dadka intii ugu aqoontii caqliga wanaagsaneed ubadkooda ayaa dhigta meesha intii gaari weyday ama maxaan ku rahday caqligooda gaarsiin waaya ubadkooda maanta jaaniska halkaa yimid inay uga faa'iideeyaan maaha inay inta soo fadhiistaan meel iyada la dhaleecayo talabaad inaan uga hadli lahaa waxay tahay iskuulka abaarso maaha iskuul albaabada u xidhan yihiin waa iskuul furan hal qabiil baa loo xidhay iskuulka dhagaysta oka maanta waa la furay qabiilka soo gali kara oka qabiilka soo gali kara maanta awal wuxuu xidhnaa sacad muuse u xidhnaa maanta qabiilka soo gali kara odhan lahaa dadka social media ka hadlaya gabagabadeydii gunaanadkayga wuxuu yahay ii soo gabagabe aad haysaan ama wax dhibaataa oo iskuulkaasi ama caddayn wax kale oo maxaan ku rahaa ardayda laleeyahay dhaqankaa laga kaxaynaya jirto itus caddayn sheegaya inuu caddayntiisa la yimaado haddii aan caddayni jirinna way caddahay ujeedada ka dambaysa caddayn qofka keena waxa weeyaan dee welcome baan leenahay haddii caddayn lahayo caddaynta annaga raalli ka aadano waa waalidiintii iyo maxaan ku dhahdaa iyo culimadiiba raalli waxaanu ka nahay haddii caddayni jirto caddayntaa ha la keeno iskuulka ha la keeno laamaha ha lasoo marsiiyo maxaan ku dhahdaa amniga maxkamadaynu leenahay dee dacwadda caadi ha loo furto oo caddaynteeda ha la keeno dabeedna gunaanadkeeda iyo gabagabadeedana go-aanka dowladda iska leh maaha iskuulka abaarsa wax bir lagu gooyey oo aan meesha maaragtay mar dambe laga kaxayn karin hadday caddayntaasi caddaato annaga waalidiintii waxaan raalli ka nahay in albaabada loo xidho laakiin stiil weli caddayn ma hayno kutaantana faraha badan ee magaalada saa u socota ee meel walba laga leeyahayna waxaanu ognahay inay ka dambayso siyaasadii markaa siyaasadda iskuulka laga daayo waxaananu idiin sheegaynaa iskuulka abaarso ma noqon doono mid ku baabaa hadal qof yidhi mana noqon doono mid aanu maxaan ku dhahdaa horumarkii iyo hayigsigii ubadku lahaayeen marna wax ka bedeli doonta marka intaas aan kusoo gabagabeynaya asalaamu calaykum waraxmatullah okay intaa igu daa waalidiinta waxaan walaalayaal kusoo gabagabeynayaa waalidiinta ninkaasaan kusoo gabagabeynaya waalidka waalidiinta khiyaarta ubadkeena sharafta leh maaragtay intaa igu daa aad baan maaragtay aan u salaamaya waad arkayseen walaalayaal soo dhawaada kolley meeshaad kala socotay tv-ga rice hotel weeyaan sheeko halis ama sheeko xasaasi ayaa soo baxaysa in iskuulka iridaha laiskugu dhufan doono ama iskuulkii aad laiskugu qabsaday walaal kabacdi markii waalidkii lasoo kiciyey ama lasoo toosiyey waxyaabaha ka jira iskuulka ama ummadii oo dhan maanta caalamkii oo dhan indhaha lagu soo jeediyey magaaladii hargeysa walaalayaal haddaba hargeysa maxay tahay hargeysa dad baa soo qorayay markaan arkayey dhaqankii hargeysu ka guuray hargeysa dhaqan kama guurin walaalayaal laakiin iskuul baa la sameeyey iskuulkii ayaa laysku qabsaday waxaa la soo saaray nimka cabdimaalig waxay yidhahdeen waalidiintu in la toogtay yidhaahdeen maxkamad in la noo keenay yidhaahdeen sharaftii iyo karaamadu ka qaaday ciyaalkiyagi haddaba waxaan kutusayaa gabadh ka soo jeeda walaashii cabdimaalig maxay tiri waxay baan tusayaa in yar cabdimaalig walaashii maxay tiri garxatis waa far keliyaata waa uliga diirkeed lama kala qaadi karo nacalaabiin ku yaalla marag la-aan baa nagu aragteen nacalaabiin ku yaalla marag la-aan baa nagu aragteen waranadeer anagu waan isku tashanay oo garxatis waa uliga diirkeed inamadeerna jeelka laguma guri karo cabdimaaligna waa lasoo daynayaa muuse hodhaqo adna waad ka digaysid haabaha wase waad ka digi waad arkaysi xaaladdu xaggaasay maraysaa
وإجيدا كجيدا وقع مدالي تويان هذا مش كدي وجهل السنة دي كجرت مجال هرجيسة كبعد مركي اللي يدي علماء ده هذا مسكيت كمان وباقرينا مسكيت دون أي كهل لأن ما أنت تجمعيه ولا يعني كبعد مركي اللي يدي عبد الملك وحلقوها يستوى قلد على سود ده كبعد والدين تو ما أنت اللي سوق عيي ويدي عبد الملك وحنوبة هنا المحكمة الله نوكينه كبعد مدحوينه وحو أركواي يا عبد الملك أركي وحو وسير أركواي ورسير كدينتي وقافته أيو عبد الملك أركي هذا بقى قد حتى سير رجي هبرة ولا أي آدس كومران وحل الدولة يا سكول كإلنا قد جهد تقبيل كستو كسو قيب كل الدولة مركي ورا قبيل بوحدنا قبيل قروحنا مركي ورا ولا ليه هذا بقى علدان هذا كلا شيء محكمة الله كان هو كسو كذا أما والدين تا ما كل رأسن تاين علدان محكمة لسوت تاجي يسوقنا وحبك جيسن ولا ليه أنا دبعت جيسن هذا بقى وحنيجي الدولة أنت بدن مجال هرجيسة وحياة بدن باكتيرا iskuul kan la isku haysto in badan buu soo jiitay weligeed waalidiintu maanta say uga hadleen weligood kama ahayd laakiin maanta waxa uga hadleen dhibaatada meesha ka jirta ayaa la ogaaday waxay tahay walaalayaal haddaba Soomaali Maxamed waxaan idin sheegayaa iskuulkani ma jeceshahay in la xidho ha ama maya haddaad jeceshahay sababaha loo xidho noogu soo dar haddaanad jeclayna in la xidho hadda iskuulku waxa laga dhigayaa walaalayaal qabiil kasta inuu ka qayb galo sida qabiilada Soomaaliland wada dago kale dhammaan qabiil kasta uu iskuulka imaado walaalayaal iskuulku waxa ka dhigtay hablo boodina walaalayaal kabacdi habliyo dhan waxay soo saareen go'aan cad oo Cabdi Maalik maanta saan arkayo xabsiga waa lagu sii adkaynaya mar haday waalidiinta kaceen hablihiina ay kaceen oo leeyahay sheekada maxkamad bay gaadhaysaa ninka waxaad arki doontiin ciyaar saadaashiisu saadaal dheer weeyaan waxaan kaloo inii sheegayaa Ordon waxa la isku haystaa ma qabiil baa lagu eryanaya mise wuxuu ka hadlay wax diin ayaa la isku haystaa wali Soomaalidii dhanayd ee Nabi Maxamed ee dhammaan Soomaaliya joogto dhan waxay taageereen Cabdi Maalik mowqifkiisa walaaya kaliya hal qabiil oo Saad Muuse la yiraahdo ayaa ka soo horjeestay taageeradii haddaba maxay dadku soo kaceen qabiil muxuu ahaa qabiilka daga muxuu ahaa inta badan iskuulka samaystay waxay u soo kaceen Cabdi Maalik meel kasta yaala maanta waa la sheer garanaya waa la gaarsiiyay ummadii oo dhan waalidiintii dhakafaar bay qaadeen madaxuna uu qarxay kabacdi waxay ku kaliftay inay soo fadhiistaan idaacadaha ayna ka hadlaan ayna yidhaahdaan Cabdi Maalik noo keena maxkamad maanta haddaba Cabdi Maalik maxkamad ma u qalmaa walaalayaal ha ama maya Cabdi Maalik maanta maxkamad ma u qalmaa mise uma qalmo waxaan ku ogaan doonaa walaalayaal waxyaabaha ka soo kordha hadda jiqbal isla yahay warkayga soo gaaray TV-ga Right Hotel wariye ka qayb galay meesha ay isku yimaadeen waalidiinta ka soo jeeda iskuulka Abaarso ay u dhigtaan hablahoogu ayaa warbixintii ugu adkay dhex marinay magaalada Hargeysa walaalayaal qalalaasa ka jira iyo buuq baa ka jira waxa ka soo kordha TV-ga Right Hotel ka soo kordha dhammaan waxaan baahinay walaalayaal dumarka oo xanaaqsan ama hadalla cadhale oo qabiilkuna xambaarsan yahay la isku marinay hawada haddaba garxajisiyo habar awal ayaa sheekadu leeyahay waa qabiil sheekadani ma habo sheeko kale walaaliye waxa la isku haystay waa qabiil baa leeyahay waxa la doonayaa qabiilka habar awal in la hormariyo laga dhiga mutacallimiin xaq qabiilka garxaj la doonayaa in laga dhiga iyagana waxa aan waxba garanay booba iyo ta aan qori haddaba qabiilka gadabuursan waxa looga ilaalinayaa waa niman tacliin leh oo inay meesha jeedaan laga baqayo qabiilka dhulbaantan waxa looga ilaalinayaa inay meesha la wareegaan qabiilkii wasangali isagu ka baxayba dhishay isagu waxa looga ilaalinayaa hal qabiil baa loo soo ootay waxa la doonayaa haddaba Ordon ma taageersan tahay ma badbaadinaa haddaba haddaad muwaadin tahay sheer gare waalidiintana gaarsii waalidiinta waxa leenahay walaalayaal dib isku noqda waa miskiin weeyaan maanta ciyaal buu haystaa waxba maxkamada keenina waa wiil yar weeyaan oo qaldamay haddaad idinku waxa ogtihiin oo iskuulkiina wixii doona hablaha la inagu dhigo qalad buu galay laakiin maxkamad baan saaraynaa waan tooganaynaa waxan haddaad qabiil doonayseen qabiilka ma weyna walaalayaal waxaan idin sheegayaa kale isaaq maanta waxay noqotay qabiil bay u kala jajabeen walaalayaal haddaba waxaan idin sheegayaa saan arkayo waxbaa salag le walaalayaal waxaan kaloo kuu sheegayaa hadda buuq baa ka jira magaalada Hargeysa waxa ku soo kordha TV-ga Right Hotel kala socotaa taako ama saacad baan nagu soo gudbinaynaa waxa ka jira meesha walaalayaal waxa la isku haystaa iskuulka iridaha ma u laabna ma jecesha iskuulka Abaarso in iridaha la isku dhufto walaalayaal hablahana la geeyo iskuuladii caadigi ma jeceshay adigay daawanaya boqolkiina iyo 20 ka daawanaya ma jeceshay in iskuulka irida la isku dhufto ha ama maya waa maxay qabiilka qura ee iskuulka furtay maxay yihiin qabiilada kale ma igu sawir baa
وما قبيل سعد موسى أيها حبر أولو سكوتكتي أي سكول كليو فرتان وما حيدك تعليمتك لا لقى إلى علينا يجو قول الله بريو ما حيتها هذه ملاجئ لقى ديجو أو سنحكي لقى ديجو ومدة عن قبيلة ذو وحبي سو فاهمين له وحب ماشك الصعود لكن هل قويس بقى لقى ديجي لا صعود شيء كذا وحنكوها يا يوكله عبد الملك إن لقول حد ليو أما الشيء يو إن شيء كده دي سال لقول قراعي أما واحد جديد لوج يستيك بعدي لقنا فين يصيدون أسوق عين هديته لقد دي لي حق مضحى ولا ليه وحكى له الشيء يا إن عبد الملك لود دي إن عنتدي لوج يو أما عنتدي أسكرتي أي صوت وريان أما دبدا أي كصوت وريان مركب عنتدي الله ديجو لما عنتدي الله كان نفقلنا أما سيده هيلي بكو كنا لقلا هري بريس قلسن لوج ينيو سيده ولد أنت أما إسقو هرا ولد أنت ولا ليه الهرب بينقول شيء إلهي دي لا أنت نكسب بس عدي سايو دمانة يا ولا ليه لكن عبد الملك هدي أي ما تقدر حدش كل بدبادين نكاسي شركة أيو كل حد من دونه وأنا دارك دونتي ولا ليه سيد الله أركيو نكاس واحد لقى بقى ينو قاعد شكل أنت ولا ليه سيد الله عذابي وذاك سمان تنا دمر كي والدين واحد سيك عيان أما يسي أولوليين دبكي شيء ولا ليه لا صعاد أبوها كسر كذا تيفيكا رئيس الدين قف كده ديني برنامجك وأنا قول شيء خير وحيابا الله سو كذا تاك يوم كل سعسينية إلى تشوك هيجي تجين سيدا أيوه نبض الجليو